dad dadka caayay dad dadka aflagaadhay waxa uu dhutinina niman dhahaya naaga ay leefaacay tamayo waxa nin ay tamayo waa naakaliita la dhahaa anu gobolka Mudug baan joogaa naakaliita la yaqaan iyo sac gusleeya baan u niraahnaa totally meet naaga ragaatiin oo xiniya leh sideedaba sac gusle ha u joojinina noolaada idin leeyahay geel baan dhulka ka xareysanayaa 100% يرادر كو ياريغا لا جوغنا ان شاء الله شد هذا نو شرف يا كراو مع قال ترى اتكاتي قال ترى اللي ودنا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله صارينا فرحي وما سنتها نادر نلا جوج درعيادنا كعي هدا ماليزيا ku tilmaantaan ماليزياد baan dhihila ku tilmaantaan maxay noqonaysaa dirciyadeena kacay buu yiri hada kala dishaan waxaan ka helay anigu markuu leeyahay goob aynu dhaynay dib u dhaawacdaa aad iyo aad السلام عليكم سلام عليكم والله كلا هذا gaaynahay waa ku dilaahay dareemi alla maxaa dhaabay هذا باوس قال معانا هلو وراي ما هذا كرنا يا جاي قطع باعس لقمه بقلاش يا جاي أنا قبلنا يا دافعة مركع سعودنا قبلنا يا دافعة maalintii dhaweyd ee faa'iiso heesti maalintii dhaweyd ismacunayna insha Allah bidmillaah kariim Puntland dhibaatooyin ka badan bay soo martay waan dhawahay ilmaadeeyay ismacunayno sida la jecel yahay ma noqonayso sida dad jecel yahay ma noqonayso ismacunayno gabar baa hadda maqlaynin adana maqlayn walaal gabar baa ku socota geeyay balukaaga السلام عليكم بدنا ما مقلسان سابينا مقلين انا وين مقلي هذا ادو gabadhi ku socotay ma maqlayn miyaa way iska dul hadlayseen hadana maqlaysa هذا معانا وامر لا تورا ددك iyo mar la yiraahdo ma hadlaysan hees lagu daaro see aqoon weydii hadal baa lagu yirgeeyay adaa way baan saaranayna adaa yirahay way baan saaranay marka qof hadlayaan kugu soo bedel anaa ku tuura geeyo maxaa hadana waa soo noqotay caadi qof hadla waa la waay qof walba wuxuu yiri mas'uul baanahay adigana waxa tiri hay way baan saaranahay waan ku tuuray qof hadlayaan soo bedelay adna hadda waa joogtaa hadal abaay khadka ka casgeeyo moodkaan gelinayaa sug marka iyada soo bixida khadka markuu hagaagay moodna ma gelin karo mana maqlayno hay maxaan sameynaa marka geey lagu ma maqlo wallahi hadeeraan ka soo degtay geey lagu ma maqlayno walaalo qolkii dhan waxa ka dhigtay bahalkii qof baa wuxuu qorayaa Puntland macadow bay leedahay Puntland miyaa la soo weeraray Puntland ha cadow bay leedahay waxay leedahay cadowga jiritaankeeda ka xun ee calankeeda ka xun ee nabadeeda ka xun
nolosheeda ka xun horumarkeeda ka xun isku duubnideeda ka xun shacabkeedu inuu kaco oo dhiidiyo oo hadlo oo calankooda qaata ka xun cadawgaasay leedahay Puntland waxay leedahay Puntland weligeed iyo allaheed cadow soo jireen ah oo nolosheeda ka xun iyo jiritaankeeda xitaa magaceeda ka xun annagu intii ka xun baanu waxaanu leenahay Puntland way jiraysaa way jirtay aragtidii hadda ay Faa'iisa ka hadashay oo ahayd in waxna la kala yeesho waxna la isla yeesho hirgashay noo mira dhashay aragtidaas annaga keenay annaga keenay in wax la kala yeesho waxna gooni loo lahaado in wax la kala yeesho oo waxa weeye qof walbaaba wixiisa gooni u yeesho sida hadda maamul goboleedada tis qaaday ee Soomaaliya ka dhisan waxna la kala yeesho ee qof walbaaba villadiisu ay gaar u tahay horumarkiisu gaar u yahay mashaariicihiisu gaar u yihiin waxa uu helayo adduunka ka helayo gaar u yahay horumarkiisu gaar u yahay wax qabadkiisa iyo horsocodkiisa uu gaar u yahay aragtida ah in wax la kala yeesho waxna la isla yeesho ma aha aragti hadda la keenay aragti waxa weeyaan lagu soo fokaray 1968 ba aragtidaasi ahayd xilligii SSDF ba aragtidaas lagu fokaray markii la ogaaday in maaragtay wajiga mooye meel kale oo maaragtay dhismaysa ama la hagaajinayo ay jirin wajiga wadanka Muqdisho ahayd kaliya ay dhismaysay ba aragtidaas ay keeneen Allah u naxariistay dad hadda maanta inaga hooseeyo oo dad yar oo iqliil ay ka nool yihiin aragtidii maanta ay tawaatis qaaday alxamdulillah dad waxaynu nahay waxa weeye immigration koodi passportka uga soo baxaya iyagu gaar u leh warqadooda dhalashada iyaga u soo baxayso kaar caafimaad leh kaarkii ay wax ku dooranayeen doorashada leh dad isku tashtay dad maanta aan cidna u baahnayn dad kaabayaal dhaqaale oo waaweyn ee dawladda federaalka ee waxna leh iyo kuwa ay keena gaar ahaaneedba faa'iido u la keenay oo dekada iyo airport international iyo seaboard international sameeyay kuwa kale na dirtan ku fakaraya dad wadooyinkoodii waxa way dadka kali ee Puntland dawladda dhexe marka ay baaba'day wax qabad dhab ah oo aan dawladda dhexe ogeyn la yimid kaliya aanu nahay dadka kaliya la yimid baanu nahay maanta ito qulqulatay yara iyo maxaa na soo maray maxaa wax na soo maray oo aanu ka soo badbaadnay oo aanu waxa weeyaan maskax iyo aqli iyo isku tashi iyo wax qabsasho aan uga soo badbaadna aanu waxa weeyaan kaga soo tilaabsana dhibaatooyin badan iyo caqabado badan oo soo istaagay waad ogeydeen markii in taariikh inooga daran ma jirinin nimankii aad garanayseen maxaakiimta la baxay ee awoodda ugu weyn ee Soomaaliya ka soo baxda ahaa markii altixaad laga soo noqdo waad ogeydeen intay koonfur oo dhan lugta mariyeen ee wax allaale iyo wixii hogaamiye kooxeed ahaa ee xabar saa soo horfadhiyay lugta mariyeen oo wadankii oo dhan saa u soo qabsadeen tagaari inay noo soo fariisteen dadka kali ah ee saa inta u caabiyay qabtay xamarna ka qabsaday innagaynu ahayn alxamdulillah rabbil caalamiin awooddaas iyo maskaxdaas wali way jirtaa qulatooyinka yararka ah oo wadanka ka jirana waa wax maskax lagu dhaafay iyo wada hada tii doorashada Puntland bad ogeydeen tii ugu weyneed ayna dhex dhigeen cadawgeen iyo lacagaha ogeydeen ay ku baxsheen aynu maskax habeennimo saa inta buug loogu bedelay habeennimo inta buug loo bedelay in sida ay rabeen ay doorashadii u dhacday oo nabad ay ku dhacday qofka aynu rabnayna aynu la soo baxnay waxaynu inagu rabno meel bay inoo yaalaan rabbina waxa la wixii rag u kaco rabbina aqbalo way rumoobaan waxa kale oo dhacday arrin aan aad ugu faraxsanahay oo gabdhihiinaan efta u saaran tahay aad hadda ugu ololeynaysaan aadna muhiim u ahayd walaalayaal waxaa dhacday calankii Puntland in hoos la mariyay calanna ay qabaa'il wataan in laga sarmariyay inaga shacabkeenni inay calamankeedu inta dhigeen calamadaas ay sitaan ilmaada reeyaan inay shacabkii Puntland iloobeen inay Puntlander yihiin dad Puntlander ah in ay yihiin inay iloobeen ilmaada reeyal oo qabiil yar oo jifa ah inta la soo qaatay in laga dulmariyay Puntlandernimadii in laga sarmariyay Puntland ma harti kaliya degan ma degana daarood baa nala degan raxweyn baa jooga dir baa kule degmooyin maraxaan baa kule dad inala degan oo Puntlander noqday oo dhalashooyinkii qaatay oo codaynaya inala jooga oo xuquuq kule oo la raba in ay ka qayb galaan cabinetka ay galaan oo qaarba ku jiro oo galeen Puntlandernimadu ma aha qabiil
ma aha magacaan harti aad ku waalateen waad dhigaysaan magacaan sidiisa magacaan waa la dhigayaa niyo harti maxaa la dhahaa niyo magacaas aniga iga soo booday magaca waad dhigaysaan ilmaada reer calamada qabaa'ilkooda wadataan iyo magacyada aad wadataan waad dhigaysaan Puntlandirnimadii baad u soo noqonaysaan Puntlandirnimadii baad u soo noqonaysaan Puntlandirnimadii asalka ahayd ee 26 sano jirsatay ee annaga naga weyn baad u soo laabanaysaan walaalayaal calankiinii qaaliga ahaa ee Soomaaliya dhan hoos harsatay baad imaanaysaan asagaad boorka ka jafanaysaan waad weynaynaysaan cirkaad geynaysaan waa la duulinayaa Puntlandirnimaduna waa muqaddis ayadaa muqaddis ah ayadaa loo baahan yahay cid uma baahna markii adigu aad Puntlandirnimadaada aad adkayso oo aad first ka dhigtid waxa weeyaan qof kasta oo asagu hoos geeyay wuu qajilayaa wixii uu ula socday iyo ra'yigiisiina wuu la laabanayaa kaaga muqaddiska ah oo kiisa ka weyn buna kugu raacaya waayo kaaga ayaa muqaddis ah kaaga ayaa ka weyn kaaga meel fog laga keenay kaaga hirgalay kaaga tis qaaday walaalayaal Puntlandirnimada aamina waan idin la socdaa waan idin la jiraa Puntlandirnimadeenu aaminsanahay ballanteenu waa calankaas ina walaaleeyay walaalayaal ku socda waan idin salaamaya santahay waa mahadsantahay wiilkan oday bari baan lahaa uu soo baxay maanta dhan hadalba aad iyo aad waa mahadsantihiin oday bari oo soo dhawow nin reer Puntland ma tahay aniga waxaan ahay aarka bari baan ahay aarka wacya aarka waaciya Soomaaliyeed nin shanta gobol iyo degmada Puntland ku aqoonsan inay Puntland yihiin waa isnaqaanaad anigu qof cusub ma ahay qof agaan soo dhawow codka kor u qaad waxaa noo sheegtay maadaama tahay nin siyaasi ah sababta Puntland loo aas-aasay waxay u taagan tahay dowladda federaalka iyo annaga waxaan isku haysano haye ku soco aarko xalayto le waxaan booqday qolka team Boosaaso oo barnaamij ka socda kadib doodii baan ka qayb galay doodaas waxay daarneed barnaamijka noocan oo kale barnaamij u dhow oo dhanka bidix laga istaagay anu waxaan yiri waxaan aqoonsanahay shanta gobol iyo degmadaas Puntland la yiraahdo sidii baan wax ku qaybsano ilaa iyo haddana lagu joogaa oo madaxweynuhu safar buu ku maqan yahay madaxweynaha waxaa laga toor wuxuuna matalayaa gobolka Sool iyo degmada Abuuhood ee gobolka Togdheer ka mid ah jirta haddana gobolka Cayn ee Puntland buu matalayaa waxaa la yiri waxaad aaminsan tahay FT Bluegeed hooyana hogaami loogada u saarneedna waxay ahayd no hooyana hogaami waxaa ka sheekeynaysan anigu kuma jireen reer Puntland ah oo Puntlandnimadiisa aaminsan oo shanta gobol iyo degmadii aaminsan SSC qaatmadan inta la kala guranayo haddii aan la kala guranne dad reer Puntland way haddii tagaan si systemkii sharciga oo baxeen Puntland baa la rabaa haddii kale aysan ahayn intay matalaad ku haystaan intay garowa fadhiyaan intay ka talinayo madaxweyne ka noqonayo wasiirkii warfaafinta dhan ee uu nin soo reer soo fadhiyeen adeerkii la xamiya yahay wax meesha waa ruwaayad iyo dhalanteeda xaqiiqda iyo dhabta loo soo dhawaado Puntland waa mid waana arintaas waa lagu la colaatumay oo lagu la dagaalamay waa ka soo tagay qolka dhowraan imi maanta duhurkii iyo ana dhinacii kala hadana ma taqaanaa la raray wax la yiri dhankii ay sahaynay baa tahay marka waxa sahayaa ma jiraan nimankaas ayaga waxay ka faadaas eftaas caqdad iyo buufis ka qabay marka anigu aan dhageystay hadalkooda waayo qolkan hadda aan joogo faadi waa u saaran cajabo wax qof kale haysata ma jirto Puntlandnimadeedii iyo dadkeedii iyo dalkeedii bay ka hadlaysaa cid la dagaalansan anigu ma arko faadaasna waa group dhalinyaro ah oo saaxiibo ah anigu arko oo anigu aan ka mid ahayn iyagana waa u qiray halkana waa ka qiraya laakiin wixii siyaasadda dadkii Puntland jeclaan waa jeclahay waa walaalahay waa garabkaygii laakiin wixii ma taqaanaa qof walba oo shaqadu axsaabtu waa lagu kala beddelay ururada lagu kala duwanaan karaa laakiin qof kasta oo wanaag wada oo reer Puntland ah garabkiisa taagannahay anagoo hadana ma taqaanaa xateena u dhaweyn anagoona aqoon anagoona magaciisa iyo muuqiisa midna aan garanayn waa Puntlandnimadaas ku taageerana walaal lanahay waa wixii wanaag ah oo la wadana waa dhinac waa kala qabaneena inta awoodeeda ah cid inuu nacaysa ama faada buluuga ha noqdana ama cid kale ha noqotee anagu Puntland wixii afkiisa ku soo qaada waa taageersanahay Puntland waa mid ilaa imika sida la og yahay sida Cabdullaahi Dani waxa doortay 40 xildhibaan
oo reer Puntland 45 xildhibaan oo reer Puntland ah waa aqlabiyad waxay halka ka cadeynaysaa sagaalka gobol ee Puntland inay doorteen dadkeeda wareegga ugu dambeeyay waayo codkaas inta leeg ma noqon karaan 2 gobol ama 3 gobol ama 4 gobol ma noqon karaan baarlamaanka Puntland waxa matalaan 5 gobol iyo degmadii hadana waa 9 gobol oo 9 gobol way Puntland waa gobolka Sool Sanaag Highland Cayn Karkaar Gardafu iyo Bari iyo Mudug sagaalka gobol waa isku mid wasiiradu halkaas ka yimaadaan miisaaniyadooda halkaas ka qaataan waxa ugu dambeysay maanta oo la magacaabay shalay oo la magacaabay agaasimiye caafimaadka degmada Werwer ee hoos tagta gobolka Cayn ee degmada gobolka ka tirsan waa loo magacaabay halkaas mushaarkii caafimaadka iyo wasaaradda waxbarashada iyo dhamaan waa laga howlgeliyaa sida la mid ah taxtan maamulka SSC Khaatumo miisaaniyadooda Puntland way kabtaa iyagana waa ogyihiin anagana waa ognahay meel lagu kala gurtay ciidankii Puntland ee difaacana jiida hore joogaan ilaa iyo iminka wax ma taqaana cudada iyo wax dad oo kala tagay ma jiro waxa wixii oo dhan fuuqsaday oo soo gabagabeynay oday bariyow degmada Cayn hadii bay miisaaniyadeeda ay Puntland ka qaadato maxay walaal si qayaxan ugu dhawaaqi waayeen inay Puntland yihiin maadaama ay ku guuleysatay Puntland 25 bishii 2023 ayadu si cad ugu guuleysatay xuduudeeda u soo xiratay maxay miisaaniyadiina ay wali qaadanayaan aynu ku jireen markii horena ay macnaha ay go'aankoodu ahaa labada Somaliland iyo Puntland kii ku adkaado xuduudiisa si toos ah u soo xirto calankiisa ka wada wadanka ka wada istaagaan raacayna ay ahayd haday Puntland ku guuleysatay dagaalkii oo iyadu ay xuduudi soo xiratay maxay si aqlabiyad ugu dhawaaqi waayeen inay Puntland yihiin oo wali ay laabka ugu jiraan noo sheego la waxa xaqiiqda waa la wada ogyahay xaqiiqda iyo dhabta waa la wada ogyahay garaajaan gara cali baa ugu dambeeyay qofkii darbiga soo taabtay oo waliba ugu fogaayo aaminsanaa war wasiir Puntland ka heshaan iyo mid Somaliland ka heshaan mid ka fiican baa idin haya qodooyinkiisa ka mid ahayd maantana wuxuu qiray inaysan wax maamul la yiraahdo SSC Khaatumo la yiraahday inaysan socon karin ilaa tashi reer Puntland isaga yimaadaan waliba wuxuu sheegay hadal boonti muhiim ah bulshagaraadka hadalkiisa kaliya khudbad dadka ugu filan oo inuu wax haday wax laga caynayo dadka leeyahay afta waxa caayeen Puntland SSC Khaatumo ay dafireen garaadka ay waxa socon weeday walaalayaal gobolna ugu dara cid gobol ugu darasana inaysan jirin adna waa ogtahay anagu waan ogahay reer Puntland waa ogyihiin marka gobolada iska sii jirnay iska daayina gobolada soo wada kororsano oo dhulkayga hal mid noqdo oo xuduudeedii soo noqoto oo aynu kamid hal mid wada ahaano waa mid anaga noo fiican reer SSC gobolka Soolna u fiican gobolka Bari u fiican gobolka Mudugna u fiican marka dhabta iyo xaqiiqda marka loo soo dhawaado waxay noqonaysaa hadalka marka la isku soo ururiyo firdhiye waa nin jaamac siyaada xaqiiqda marka la afka lagu dhufto aydiido warfaafinta dhan Puntland aysan waa nin jaamac siyaada labadoodu waa isku tool waa isku xaafad marka gobolka Sool Puntland cid ay u magacowday oo gudoomiye gobol ah oo barasaabahay ma jiro kii hore joogana xilka waa laga qaaday على طول automatically waxa gudoomiyaha gobolka Sool ah firdhiya ah degmada Bohol iyo gobolkaas Cayn agaasime leeyihiin iyo gudoomiye iyo hawsha dhan way ka socotaa marka yaa waxba la isku dhaxay wadin hadii ay noo socoto waa ku dayb aheed xasana waa diiday ma Puntland baa u diiday SSC Khaatumo inay shirki fariisato ma Puntland baa u diiday miisaaniyadii SSC Khaatumo in laga siiyo dowladda federaalka dhexe واميا Puntland بكمل يهين حسنا وأوجي أنا وأنا أوجي إذا كانوا وأوجتين حقيقة يجنا وأوجي فردين وأوجي جرادين وأوجي مركب الله عليال وحنشرين يا لسكو حيشرين أنا ومري كرتولا ذي وأجو صنع يا سانو أورن كريم بعد كلام أورن كريم وما أنا مرير بانتورنا نما قبان فكر كاس مجري البهان تعيال القرحية أما مجري قبل الصول وخاتمة ليري haddaan maqashay Khaatumo على طول dhulbahanti marka wax kala soo kordhay ma jiro beesha dhulbahantana waa beel sharaf leh waa beel reer Puntland ah shan wasiir iyo 17 xildhibaan iyo saraakiil ciidan iyo wasaasadda dawladda ka talisa waa hadii la fiiriyo madaxdeeda oo dhan waa reer baalkii dhulbahanta weeyaan marka magaca dhulbahanta xogaa la qurxiyay social media qabiil ka sana caalam buu leeyahay jifka sana caalam bay leedahay maantana caalam buu sameystay علامات سحبة كمان دوانا عالم كمرير ستيت
calanka xariir la magacyadii waa la qurxiyey markii reer hebel inta la dhigay xataa qolo waxaa samaysata calan garacad xataa maalin dhaweed calan bay iska yar wadwadatay waa calamadaas oo kale marka anagu waa u jeednaa caalamkana waa u jeedaa bahanta ama maakhir la baxo ama khatma la baxo ama heesiisa la baxo ama magac cusub ha keenee marka xasana wuu ogaaday meesha waxba ka socon madaxweynihii gudoomiyihii baarlamaanka dhammaan wasiiradii bay u geeyeen waree dhameydinka kaliya meesha jooga waa ka xasan waa ku soo tufay xamza bar waa tuula qeela dhaanta joojiya marka dhabta ha ogaadaan walaalaha iyo reer sool reer dadka awdka jooga ay dhabti waa ogaadeen xaqiiqdii way soo qaateen marka reer soolow waa mahadsantahay arko waa kugu soo celinaynaa aad u mahadsantahay oday bari amina wax yar baa cadeynaya anigu ma ahi fikirna lama qabo eftaas laakiinse puntlandernimada iyo xuduudaha puntland waa mid kamana kaftamayo haddii la igu tirinayana waa okay anigu fikirkayga waa sidaas lamana qof ma taqaana ka mid ah waa mahadsantahay oday bari horta eftaan waa faa'isa oo la gaabiyey barasho wanaagsan eftaas 2 sano wadanka ku maraa faa'isa alasa hoos iigu qornaan jirtay magaca kaliya iska bedelay oo ah aamin macnaha wax walbo aan sheegay 2 sano sanad iyo inta hadda xasan joogay wax walbo aan ka hadlay xaqiiqadii bay ku soo noqotay sidii aan ku sheegay ku soo noqotay marka erayga hoos iigu qoran waa aamin iyo eftaydii oo faa'isa ahayd waa horta waxa meesha ku qoran eftu xisbi ma aha laakiin anagu maxaan nahay reer Puntland baana erayga efta waa faa'isa aamin baa hoos iigu qoran maxaa aaminaysaa wixii aan ku sheego bini'aadamka ilaahay baa wuxuu u kala sameeyay aragtida qofna meesha dhow wax ka fekeraa qofna meel fog wax ka fekeraa aamin maxaa igu aaminaysaa xasan sheekh maxamuud iyo waxa uu wato aamin waxaa igu aaminaysaa inaad 4 degmo leedahay aamin waxaa igu aaminaysaa inaad maamul goboleed noqon karin aamin maxaa igu aaminaysaa inaad Puntland tahay aamin maxaa igu aaminaysaa inay Soomaaliya federaal tahay aamin maxaa igu aaminaysaa inaan dastuurka Soomaaliya qof bini aadan inuu furto inuusan ku xadgudbi karin oo sidoo rabo uusan yeelan karin aamin maxaa igu aaminaysaa xasan sheekh maxamuud aakhirka ugu dambaysa isagoo ul lagu wado intee dhada la geyn doono aamin maxaa igu aaminaysaa waxa igu aaminaysaa wax walbo aan ku sheegay 2 sano aan akhrinayo TikTok ka akhrinayay maalin walba waxba soo baxaya intaas igu aaminaysaa erayga waxa laga wadaa aamin eftuna waxa weeye ii sheeg waxa waaye waxa kale ugu dartaa faa'isay magacayguna xisbi ma ahana aamin magacayga ma anu faa'isa la yiraahdaa waa f faa'isa weeye aamin hoos ku qoran horta dhageysta marka anaga meesha maxaan ka hadlaynaa taliyaha hadda waa maqlaysa agaasimaha caafimaadka ee degmada Wirwir shalay waxa laga magacaabay Puntland waxa magacaabtay warqad wareegta lagu soo saaray wasaaradda caafimaadka Puntland laga magacaabay Abbas Madani taga 2 wiig ka hor wuxuu ka hadlayaa buuhoodle stationkeeda dadka jooga ciidamada booliiska iyo ciidamada daraawiishta buuhoodle waxa siisa dawladda Puntland ba waxay siisaa mushaarka waa meel Puntland darbiga waxa ku masawiran calankii Puntland ku masawiran wuxuu leeyahay Abbas Madani lacagta aad idinka siisaan buuhoodle waxa rabnaa in loo dhiibo firdhiye inuu ma aragto halka mariyo dhinaca kale saadaasha hawada waxa ka hadlaaya dawladda Puntland ka hadlaysa waxa ku soo haray meeshan la leeyahay sool maxaa ku dhacay marka sool waxa ku dhacay shacab la marin habaabiyay sida shacabka degan ceelbuur iyo meesha la leeyahay ceelbuur iyo jilib iyo meesha la leeyahay bu'aale loo waalay oo qolada afduubka gacanta iyo galhareeri qolada afduubka ah aadan yabaal iyo waxaan garanaynaa markii la qabtay aadan yabaal iyo caliyaale iyo ceel dheere iyo markii la qabtay shacabka hawiyaha waa guuri jireen waxay la guuri jireen qolada afduubkay la guuri jireen maxay ula guuri jireen marka maxay ula guuri jireen aan isweydiino runirgood markii la qabtay meesha la leeyahay aadan yabaal markii la qabtay dhulka abgaalka maxaa magaalada looga guuray oo qoladii afduubka oo duurka galaysay oo guryaha aan haysanin shacabka ay ula guureen shacabka waxay ula guureen maskaxiyana loo qabsaday shacabka oo waxa loogu sheekeeyay dawladda waa dawlad xun annaga muslin ah muslimnima ku dhaqanaa halkaasaan ka baxaynaa haye annaga marka shacabkeeni reer sool waana laga waalay
waxaa naga waalay niman yar yar oo biidhi qaatayaal ah oo Somaliland la socdo waxay dhaheen Puntland waa meel xun waa meel kan ah maadaama shacabkii annagana lagu diray reer Puntland ahaa sida afduubka dadka shacabka ay ugu diraan baa waxaan sugaynay annaga muddo 15 sano shacabkeeni xuquuqdii ay nagu lahaayeen gobolka Sool iyo Buuhoodle waa la siinay xuquuqdii ay nagu lahaayeen maxay ahayd waxay nagu lahaayeen awood qaybsiga dawladda ma fadhiyeen kuraastooda ha way fadhiyeen xildhibaanadoodii ma haysteen waa haysteen golahoodii wasiirada ma haysteen waa haysteen agaasimayaashoodii ma haysteen waa haysteen taliyaha ciidanka ma haysteen waa haysteen ciidanka ma ka tirsanaa way ka tirsanaa ciidamadii ugu badnayd laascaano xoreeyay ciidamada daraawiishta oo Puntland bay ahay Axmed Karaash baa watay madaxweyne ku xigeenka Puntland baa watay mushaari bay ahay Puntland baa mushaarka siinaysa markii 15 sano ka bacdi shacabkii laascaano ay ogolaadeen dawladoodii Puntland oo ay dhagaxa qaateen ay ogaadeen qaladka iyo saxda dawladii waxay garab istaagtay shacabkeedii garab istaagtay waxay soo xiratay xuduudihii Puntland bay soo xiratay waa kii dhahaayay ninka la dhahaayo baarlamaanka fadhiyay oo ninkii warsangeliyo hore maanta waxa ilaahay mahadii abu yiri xuduudihii Puntland inay xiran yihiin intuu ka u qaaday dastuurkii Puntland hadda marka maxaa naga baqan hadda wali waxa naga maqan shacabkii reer Sool oo aan ku sameynayno dahaaro sharciyan wa aqliyan ah maskaxiyana loo nadiifinaya qofka marka maskaxiyan loo nadiifinayo daawada la siinayo hal mar laguma soo boodo la qabsi waxa la dhahaa jirta agaasima looma soo magacaaba firdhiye sarkaalka daba taagana mushaarka la siina en saadka la siina baabuurta loo soo bixina calanka yarka iska wataan dhib male Mareykan adoo joogtid baa calanka Puntland inta qaadatid baad ku mashxaradaa kor baad u qaadaa Mareykan adoo joogtid calanka Soomaaliya iska qaadan kartaa qofka warqad calanka uu iska qaadan kara wax muhiim ma ah calanka laakiin wuxuu u baahan yahay ciidan difaac ah iyo dhaqaale lagu difaaco u baahan calanku waa calankii Puntland dhaqaaluhuna waa dhaqaalihii Puntland qayladuna waa iska caadi wiilka galhareeri jo aadan yabaal markuu dhahay Xasan Sheekh Maxamuud ciidamada waa dawladda dagaal bay galaysaa odayaal gargar godgaduudan oo wacaysla ah baa soo fariistay waxay dhaheen Xasan waa tuug laakiin ma la dhageysan lama dhageysan sharciyan wa aqliyan waa niman ma aragtay halka fa fadhiyo waa xasara masuulka ah dadka horta waa inay waxa fahmaan shacabka reer qaatumo dhaqitaan maskaxiyana lagu wadaa waa la dhaqayaa tartiib shalay waa arkaysan agaasimihii in loo soo doorto wirwir halkaas aha caafimaadka aha biyo gelin baa waxa laga wadaa Buuhoodle biyihii wasaaradda biyo gelinta Puntland baa ka shaqeynaysa magaaladan laascaano reer jaamac siyaar la dhaha waxay haysteen 15 sano waxay gumeeyeen dhul bahantihii kale haddana waxa haysta reerka jaamac siyaar baa waxay haystaan magaaladii laascaano dhinacaas tusaale idin siinaya sirinta waxa fadhiya nin la dhaho Mahad Cambaashe waa nin jaamac siyaada ciidan buu haystaa wuxuu ku handadayaa dhul bahantihii kale wuxuu leeyahay hadaa dawladdiina Puntland ku noqotaan Somaliland baa idin geynaya sirintuu fadhiya waa ina Cambaasho nin reer Puntland ciidamada daraawiishta oo jooga meesha la leeyahay laascaano waxa haysta taliyaha geesood yuu ahaa geesood wala la moodka gal geesood baa idin macnayna geesood waa nin jaamac siyaada muxuu qabanay wuxuu ahaa nin Somalilander ah wuxuu ahaa ninkii ma aragta markii la joogay Tukaraq ay Puntland joogtay ninkii ciidamada Puntland ku laayay buu ahaa Tukaraq wuxuu ahaa 15 sano ninkii laascaana gacanta ku hayay wuxuu ahaa ninka mushaarka ka qaata Somaliland wuxuu ahaa amniga Sool ninka ilaaliyo ahaa taliya geesood baa la dhahaa hadda ciidamada daraawiishta yaa haysta marka mar labaad oo meesha la leeyahay laascaano geesoodkii shalay Somaliland ahaa baa haysta geesood laascaano markii la duminayo xaquu ku maqnaa geesood laascaano markii la duminayo wuxuu ku maqnaa wuxuu joogay meesha la dhahayo buurta hodantuu fadhiyay Somaliland way ka badashay shaqadii dagaalkii markuu weynaaday ina Cambaasho waxa la ogaaday inuu daacad yahay dagaalkana si fiican uu galaayo geesood waxa la arkay isagoo waxoogaa gees ah dawladii Somaliland u yeertay magaalada Hargeysa lagu celiyay magaalada Hargeysa markii lagu celiyana buul baa laga dhigay erayga buul ma taqaanaan qofka mushaarkiisu qaadanaya laakiin ma shaqeynayo magaalada Hargeysa intii laascaana la duminayo dhan geesood wuxuu fadhiyay Hargeyso markii laascaana ee xorowdayna wuu soo noqday wuxuuna ka noqday taliyaha ciidanka daraawiishta ee laascaano
sababta uga noqday maxay ahayd shalay Somaliland oo ah waa nin jaamac siyaada isaga iska leh laascaano marka wuxuu ka noqonayaa ciidankii daraawiishtu xukumaa waa nin jaamac siyaada midda kale idin sheega maayarka magaalada duqa magaalada waa maayarkii doorashada qofka iyo codka Somaliland ku yimid waa nin jaamac siyaada waxa soo doortay shacabka reer laascaano iyagoo u codaynaya Somaliland waa maayarkoodii hadda yaa maayarka ah maayarkii Somaliland ay u soo dooratay laascaano wiilkii baa maayarka duqa magaalada ka ah fahma taliyaha booliiska oo saldhigga booliiska haya waa nin jaamac siyaada ma hadduu noqdo maya uu ahaa weligii Somaliland uu ahaa ninkii taliyaha booliiska ahaaba haddana taliyaha booliiska ah waa inaa fahantaan Soomaaliye meesha wali laguma kala bixin qoriya lagu kala baxay maana siyaasad ahaan Somaliland hatta waxay ku haysaa duqi magaalada waa Somaliland booliiska Somaliland gacanta ku haya ciidamadii daraawiishta Somaliland gacanta ku haya oo soolo dhan ninka ku haya waa Somaliland kaliya firdhiye baana ka ahayn inta kale waa Somaliland waliba hatta sheekhu beledka Somaliland waaga hore la jirjir hadda waa qaatum sharciyan wa aqliyan dadku waa inay saa u fahmaan marka wali faa'isay maskaxdu kala jira tulaa dadka madaxan ka garaa xabad kala dhacaya duqa ma aha odayga garaadka ma aha sheekhu beledka sheekha masaajidka tabliiqa siyaasadeed ka bixiya waa ninkii reer Somaliland ahaa shalay maantana waa Somaliland waa qaatumo horta halkaas waxay haystaan Soomaali nimanka jaamac siyaad madaxweynaha waa jaamac siyaad taliyii booliiska waa jaamac siyaad taliyii daraawiishta waa jaamac siyaad wasiirka maaliyadda waa jaamac siyaad taliyaha sirinta fadhiyo ina cambaashana waa jaamac siyaad ninka baarlamaanka Somaliland fadhiyo waa jaamac siyaad oo baarlamaanka fadhiyo wasiirka warfaafinta ee Puntland waa jaamac siyaad ninka golaha aqalka sare ee Soomaaliya ku xigeenka ka waa jaamac siyaad marka wali reerkii kale oo dhulbahantaha ahaa waxba ma haystaan marka waa in tabantaabis ay ku jiraan tabantaabis nimanka ugaaryahanka ahaa oo Puntlanderka ahaa dhaqaale iyo dhiig waxay hayeen laascaano ku xoreeyeen hal kursina kuma haystaan reerka jaamac siyaada marka dadka way handadaan waxay leeyihiin halkan waxa noo fadhiya ina cambaasho oo ciidan wato hadaa noo dhahdaan ina cambaashaan soo gelinayna nimankii Somaliland wadanka waa u fasaxayna marka waxa lagu jira habar macaane gabadhaana hadda hadalka u sharaxaya ititibis waxa la dhahaa jirto tartiib reerkii kale oo dhulbahantaha ahaa wali waa geed haad waaye geed haad waa sababta waxa keenaya maalin dhaweed xataa waxa laga digay ugaaryaha nabadoonkoodii baa la dilay oo ahaa nin ma aragtay ahaa nin halkaas iska fadhiyo shacab iska ahaa reer ceer gaaba ahaa shan baa lagu dhuftay nin kale ugaaryahana la yiri dil wax fahma reer Puntland xaalada adag baan ku dhex jirnaa haddaan reer qaatubo xaaladu waa nagu adagtay kaliya hanoo fahmina marka leenahay waa ku dareemayna laakiin shantii gobol iyo degmadii na fahma marka anagu marka automatic haddaan nahay shacabka reer laascaano automatic ma soo geli karna Puntland maxaa yeelay ina cambaashaa sirinta noo fadhiya 15 sanana waa xasuusanna jaamac siyaadna waa xasuusanna waxa ka suurtoobana waa xasuusanna ina isqabanina waa xasuusanna inayna kala harina waa xasuusanna xaaladdu marka waa nagu adag tahay reer Puntland oo noo adkaysta xaaladaana jeexjeexay xaaladu waa jeexjeexay dhinacaas horta waa sidaas dhinacii kale nimankii ahaa ugaaryahan way caqliyeysteen waxay dheen magaalada ceergaaba lama gelaayo laana firdhiyaha jaamac siyaad oo abayuuska ku haaya laascaano haddii gobolka Sanaag la geeyo dee madaxweynaha rasmi iyo sharciya waa caqliyan uu noqonaya marka waxay rabaan inuu meesha ku baaba'o oo suu hogaamiyaha u yahay degmada ma aragtay laascaano maalinta dambe la dhaw waqtigi waa ka dhamaaday ora iska tag sababay la ciyaaray waa maqlaysa ninka dhamaayo ahaa garaadkii ugaaryahanka ahaa kusimaha ahaa garaad Saleeba wiilkiisii waa kii dhahay anagu uma rabna ceergaaba dagaal sababtu u dhahay ma taqaanaan inuu firdhiyo madaxweyne noqonin buu rabaa jaamac siyaadkan haday laba gobol isku helaan taa qofna waxba uguma ogolo xataa waxay diideen garoonkii diyaaradaha in magac qof kale lagu qoro xataa way diideen jaamac siyaadku waxay ku leeyihiin laascaan anaga iskale markuu mar rabaa dhulbahantoo dhan inay jaamac siyaad is hoosgeeyaan horta fahma waa ina halkaan ka fahantaan xisaabaha maalin walba waa isugu kiin dardaraa xisaabaha waa isugu kiin dardar dhulbahanta waxaa jira marka
aan xataa qufulada iyo furaha aan loo dhiibin wallahi waa runta xitaa waxaan noqolay Axmed Garaad guriga kama dhisan karaan dhul laga gadi karo maalin dhaweed qolo reer Itoobiya ahayd oo dhul bahanta ahaayo dhexda maro gadgaduudan intay ku soo xirtay soo cararay oo maqlay laas caana waa la qabsaday baa waxay damceen laba guri inay ka dhistaan waa idin shidi kara hadda kiliibka odayaasha jaamacsiyaad nin walba gurigiisa ku ekaada la yiri walaalayaal Itoobiya degantihiina gurihiina ku ekaada marka dhul bahanta walaal Ilaahay qadartii Soomaaliya gudaheedana waxay ku leeyihiin saddex arkay kiliibkaas adigu ku sheegay Faisal waa loo diiday xaaladu waa adag tahay xaaladu waa adag tahay fahma xaaladu waa jaxjaxanta hadda hadii la dhaho calankii Puntland baa la surayaa in cambaasha halkan taagan automatic jaamacsiya dagaal bay soo qaadayaan jaamacna ma kala haro ninkii u weynaayo madaxweynaha u ahaaba yiri sujuudaha laga calaamadiyo qofkii hadla marka dhulbahantii kala xamaarashay ku jiraan sidii maski bay xamaaranayaan dagaal adag baa soo socda dhulbahanta dhexdiisa dagaal isla gali doona jaamacsiya dambe laas caana kaligii ma qabsanayo dhulbahantii kala xub urursi bay ku jiraan aan u yara kaadino marka aan yara kaadino jaalama jeerteeno fahma xaaladaha jeexjeexan barkadkii iyo qoladii kale reer Itoobiya iyo qoladii dhulbahantihii iyo yaxyihii iyana xaalada adag baa ku sugan marka xaaladu waa adag tahay xaaladu waa jeexjeex marka cayda hal